udug nolosheeda wax badan ay ka bedeshay maadaama uu yahay ganacsiga ugu horeeyay aan sameeyo waxay keentay hamigii noloshii aan ka lahaa inuu sii balaarto wehelkayga weeyaan wiilayga beeriyo wadnaqayga weeyaan magacayga Sahra Ways Axmed waaye xilliga ugu dhalatay fikraddan waxay ahayd 2018kii xilli aan jaamacadda dhiganay oo ahaa sanadkii saddexaad semester 5 ahaa xilli aan qaadanay ahayd course oo marketing soo macalinkeena nagu dhahay marketing balan hala diyaariyo markaa balaankii araadinaynay markaasoo igu dhashay flowerkan wuxuu ahaa mar walba wax aan jeclahay markaasaa isdhahay ka diyaari marketing balaankii maanan ka diyaarin fikradeedii meelaa dhigtay wax kale markaasiitii course markaa dhigan ugu diyaariyay laakiin wixii meelaa dhigtay kadib intii aad diyaarinay waa sii waday sidoo kale semester 6ka waxaa qaatay maado entrepreneurship taas iga sii saaciday inaan fikirkeygii oo markaas aan sii balaariyo oo wax badan aan ka sii qoro waxa dhihi karaa udug process walba business maro waa marsiye fikradii waa qoray waxa sameeyay market research ka sii sameeyay kali intaas way igu sii filnaa weyse waxa fikrad igu dhalatay inaan u safro wadanka banaankiisa u aado oo maxaa la dhahaa xogtii aan sii raadiyo kadibna aan train u sii galo tababar aan soo qaatay kadib udug ee imaaday caqabadihii ugu badnaa bilowgii dareemay waxay ahayd market researchkii markaa sameynayay oo dadkii markaa dhaho flower keena wadanka oo natural ah waxay dhahaan oo macquul ma noqon karto flower sidee wadanku keenaysaa in sometimes cimiladii wadanka ay iga cabsiyaan dhahaan wadankeena wuu kulul yahay sidee flower uga haynaysaa marka taasna marna caqabada igu ahayd marna waxay ahayd si positive u qaadanaya dadkii waxaan ma sameyn karto markay dhahaan anigana waxay ahayd wax isii motivate gareenayo oo aniga hore ugu sii soconaya ahayd anaga wax kaliya ma iibino sidoo kale waxa iibinaa performance sidoo kale fashion accessories ka dhagaha faraantida saacadaha rag iyo dumar waxyaabahan candles-ka carfaya originalka ah udug flower kaliya maaha waxyaabo kale alaabo kale oo giftiisa jiro oo flower qofka markuu qaato oo giftigana uu la qaadanayo udug markii laga soo tago waxa kale aan jeclahay waxa waaye cunto karinta in skillkayga cunto karinta aan si balaariyo aan noqdo cunto kariye buuxa dunida chefska waxay ka yihiin wax aad u qiimo badan ay ka yihiin soo anigan dadkayga aan uga faa'iideeyo xirfadayda cunto karinta taas aan jeclahay insha Allah waana ka dhameyn doonaa